السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن سيدا ودوكسونهاي بري ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay 2025 waxa aragnay idaacado badan ee caalamka in ay diiradda saareen ama ay ku mashquuleen in ay ka faafiyaan Soomaalida hadallo negative ama hadallo sharaf dhac ku ah Soomaalida gaar ahaan Soomaalida degan Mareykanka. run ahaantii aniga Mareykanka ma degni laakiin qof kasta oo Soomaali meel ka soo jooga caalamka markii wax laga sheego run ahaantii dhamaantiin wayna saameynaysaa oo waan la qabnaa dareemka qabtaan reer USA hadii aan nahay reer Norway. marka su'aasheedu waxay tahay maxaa keenay oo ku soo aadiyay maanta ama bilahan ugu dambeeyay in Soomaalida sidaas loogu mashquulo oo si public in lagu tilmaamo Soomaalida inay yihiin dad lazy ah, dad oo ma aragtay systemka problem ku ah, dad ma aragtay lacagaha iyo musuqmaasuq iyo lacag xaditaan waxyaabo badan lagu yeeday xitaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si public ah wuxuu Soomaalida u sheegay inay yihiin dad qashin ama garbage ku tilmaamay si cad oo idaacad kasta email kasta tago Soomaalida wuxuu dhahaa dawladda Soomaaliya is nothing meesha waa barbaric country xitaa dadkan oo siyaasiyiinta oo social media ku jiro xitaa Soomaalida bari u dambeeyay waxa arkay in hadallo negative laga soo gudbinayo in Soomaaliya meesha ugu xun adduunka ay tahay dad oo cawaan oo IQ-gooda aad u yar yahay ay degan yihiin waxaasoo dhan maxaa ku soo aadiyay Soomaalida maanta maxaa tooshka in lagu ifiyo Soomaaliya maxaa keenay gaar ahaan Soomaalida Mareykanka iyo guud ahaan Soomaalida caalamka meel ka soo joogaan idaacadaha dalka Norway xitaa way soo qaataan waxa laga sheegay dad dalka Mareykanka Soomaalida degan kuwa inta joogana waxa lagu dayaa in lagu xiro oo waa la mid oo kale. marka su'aashtan waxay tahay waqtigan maxaa ku soo aadiyay misleedahay Soomaalida degan Mareykanka iyo qurbaha ay ka lukule oo wax ka dambeeyay in sidaan loogu tilmaamo ama wax looga sheego xitaa dawladda Soomaaliya waxa lagu sheegay inay tahay dawlad aan jirin oo waxba ahayn nothing Allah maxaa loo waayay siyaasiyiin ama madaxweynaha Soomaaliya muxuu ugu soo hadli waayay misleedahay waxa jiro oo aanaka ogeyn oo la qarinayo markaas. su'aasha kale aan rabo in aan ogaado waxay tahay sidee looga bixi karaa xilligan adag Soomaaliya xilli adag oo badan way soo martay laakiin hadda media problem badan ka taagan dunida Soomaalida sidee ma aragtay looga bixi karaa xilligan adag. su'aalahaas waxaan jeclaan lahaa inaad ka soo jawaabto ama qoraal yar commentiga 2 iyo 3 waxa ma aragtay gaarto qoraalka hoos noogu soo qor waxa isku day doona insha Allah inaan video kala soo sameeyo aan isku day inaan su'aalahaas ka jawaabo waa ma santahay waa aniga Cali Maxamed Ismaaciil Baashi oo kule maalin wanaagsan.